tiro hoobiyaala ayaa xalay lagu garaacay agagarka madaxtooyada iyo taliska qaybta 6aad ee ciidanka xoogga Soomaaliya. 3 ayaa ku dhimatay, 19 waa ay ku dhaawacmeen. Dadka ku dhaawacmay hoobiyaasha ayaa la gaarsiiyay isbitaalka weyn ee Baydhabo, halka oo lagu dabiibayo. agaasimaha isbitaalka Cabdifataax Ibraahim ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca hadda la soo gaarsiiyay isbitaalka. marka inta 12 kaas aan kala qaado 4 qofood ayaa waxa dhaawacyo halis ah. dhaawacyada halista ahna isbitaalka magaalada Baydhabo wax ayaa looga qaban karaa. mid ka mid ah ayaa hadda saalada ku jira oo markaas loo sameeyo amputation ama qaliin oo dhinaca lugta laga gooynayo, iyo qof da' ah oo dumar ah oo markaas da'deeda lagu qiyaasay 80 jir oo iyadana ay ka haleeshay firirka caloosha. wasiirka wasaaradda maaliyadda ahna guddoomiyaha guddiga nabadgelyada Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa u tacsiyay dadkii ku dhintay hoobiyaasha, isagoona kuwa dhaawacmay Ilaahay ugu tuugay inuu caafimaad siiyo. idoojo nadiifiya oo bari gali walxab yaraato dhibaato iyo geeka bulshada ka hayaan marsiina siyaasiyo geeka ka jiraan tan aragaan hadii qofkii ta siyaasad arrintiisa ta geeka siyaasi geeka ka lug lahayn la dhamaayo la baabiyo كلي بأمته أرجو هايته إسلام كه خاصة أمته الصومالية تكدك بين الرأي باي رابطهم رجوا وليك هاي أنا أديك عليهم إن الد السياسيين اللي بيكسدوا ومسعيدن ولين تماو مسمام ولين تماو يوك عليهم على الشباب اللي دجالني على الشباب ولين اللي دجال سنيا نوراه إلهي أبو رلي بني آدم كان اللي دجال سني بل دجال سنة شخصية أنا اللي جرأه إسلامية تنجرأه ما إلى الرأي قوس بريق لنا لمسجيك والنبي جيسي اللي نرجع إني مدافع لك جرى الله طماي ما هو هو المدة عن حماية هايتو كل مدة إلهي أبو رديات روم وسوء عاره حقيقيا هديه تبني آدم عروة ولا نقبض وايد إلهي يسوء ما إلى الرأي ظلمت على كنا قدرنا نفتيز نكحارم والي ومدة أتيا نكحارم والي مركا بلشوي أنا ويك باغي إني ما إلى الرأي إن من كان أرحل الله ويالك marna ma ila raaya ihsan in suu biyana umada in lisku qabado lanka at least hata walkala qabado ay meeliyo kanoolin iyo meeliyo umadu ku dhibaatayaan in la hasheego. xalay 10 saac ayay ahayd markii madaafiic lagu garaacay agagarka madaxtooyada ee Koonfur Galbeed. ciidanka maamulka Koonfur Galbeed kuwa dawladda Soomaaliya waxay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii xalaydo magaalada Baydhabo ku soo weeraray hoobiyaalka. Abduqaadir Maxamed Xuseen TV Star magaalada Baydhabo.